soo socaya markii la yiri nin walba wuxuu ku tala galay inuu mihiisa ku dhinto baawrku waa qarax waana soo socaya markii la yiri nin walba wuxuu ku tala galay inuu mihiisa ku dhinto uusan meel u dhaqaaqin magacayga waa Cabdi Maxamuud Suubi oo loo yaqaan Cabdi Wabiir meeshan waxa dagaalku noogu qabsaday iyo sidan shabaabka isaaga celinay 12 saaco habeenimo masaajidka aan ku jirna ay meelaan ka filay naga soo galeen taliyaha ururka Cabdi Dheere oo naga koofureysay xabada ku bilaabeen annaga markaas waa noo shubdhaheen kadib 15 baabuur waxa ku timid jidka waqooyi oo 2 baabuur oo qarax iyo 8 baabuur oo ayaduna socoto oo dhashiikayaal ay nagu yimideen markaas kadib waxay nagu bilaabeen dhashiikay nagu bilaabeen waxay nagu bilaabeen baalka dhihi jiray inshaag suugay nagu bilaabeen baabay nagu bilaabeen iyo baadniin waa iska celino minaarada kulan inta raacnay baaka aman indhuhu uga bajinay iyo sabin waa naga naqdeen gadaalay nooga naqdeen baawur qaraxaha noo soo dib dhaafay baawurkii sabin aan ku dhifanay mihiyow ku qarxa asuguna intaas markay aan sameynay ciidankina oo wali naga koofuraysan nagu soo rogaal celin baawur kale oo qaraxa yimid leel calaawi meel yar oo baqsaneed oo masaajidka bari ka ahayd oo soo galay darbiga masaajidka uu noogu dhiftay marka uu noogu dhiftay baawrku waa qarax waana soo socaya markii la yiri nin walba wuxuu ku tala galay inuu mihiisa ku dhinto uusan meel u dhaqaaqin baawrku sabin waa weyn markaas aan ku dhifano marka uu nagu dhiftay waxa yimid ciidankii baahalahaaya korna koonfurna ka soo noqday barina ka soo noqday waqooyina ka soo noqday afarta koona ibn laga heesteen markaas waxaan la dhacna liif iyo BKM nin kastaba wuxuu ilaahay baray intuu baadiyaha joogay oo liif yaqaan la dhacay waa kuwa mahaas 20 hadda waa mahaas taalo adunka aad soo sawira kartiin markii baawrka la gubo kama haas yaala markay maaran noo waayeen iska raacnay 2 kiiloomitir noo soo dhaaf waayeen beledka gudihiisa iyo masaajidka 2 kiiloomitir u soo dhaaf waayeen bartaasan isaga celin 24 saac go'doona galsheen dhaawici iyo dhimashadii iyo ninkii noolay saddexduba masaajidkan aan ku kor joognay labada iyo 10 markay dhacday dawladdu noo timiday intaysan dawladdu noo imaanan mootooyin ku qaadnay dhaawac mootooyin ku qaadnay asaan waxaan ugu geynay dawladdu waa soo dhaaf weysa meel halkaas meena dhulka loo dhigay iyo la wareegna dhulka aan ku qalnaqanaan dhaawac u geynay dawladda markaan dhaawac u geynay dawladda kadib jidkii soo furatay saasa xalal 2 saac nooga yimid 24 saac saasan u dagaalamayna ilaa 48 saacadood nooga yimaado oo dad islaam uu nooga yimaadana inaan kul nin inta in loogu yimaadaan rabna maahan nin nool in loogu yimaado lama rabin anigu oo shaa ugu yimaado waxaan gudaha ku jirnay 25 niman ahayn 5 dhimasho iyo 10 dhaawac ay naqdeen 10 waa soo hirtay 10 meeshan ku badbaasay 24 saac ay shabaab kula dirireysay xabadii waa naga go'een lift waan ku dilayna maahan xabada kala ridi maahin markay nagu soo dhawaadeen 2 farqad ama 3 farqad dhowr beeka ma haysanay ay magoy ma nooga soo dhawaatagana isaga caawin asay naga sikahay aykoon saasa dawladdu nagu soo gaartay xalay adigu maxay ahayn ciidan dawladda mas'uul anagu waxaan ahayn macawisleyda magaalada Ceel Cali Axmed kana tirsan dawladda Soomaaliyeed